Asalaamullaahi calaykum asxaabtayda in badan kala maqnayn. Maanta isku soo laabanay mashquul yar kadib dee saa ogtihiin ba anigana waxaa weeyaan jaanis fara badan ma hayo. Maanta maxaan ka hadli rabaa? Maanta hadday aragtaana soo fadhiyo waxaa laga ka hadli rabaa taro maxaan ka hadli rabaa? Waxaan ka hadli rabaa waxaa waaye inaan maanta waxaa iga baxsan la wax la dhahay tiradii caadiga iga baxsan la aniga tiri maxaana kala haysto. Maanta waxaan rabaa inaan muuqaalkan 5 daqiiqo ama 6 daqiiqo soo socoto aan ku gorfeeyo lambar 7 ama lambar 7 ama lambar 7 saa u taqaano ama lambar 6 ma garad 6 inkastoo 6 tahay laakiin 7 ma garad marka soo laabanayna after isku soo laabasho wanaagsan asxaabtayda. Saan hore idinkugu sheegaba waxaan rabaa maanta inaan aniga number 7 si fiican isu dhex galno. Haddaan hadda muuqaalka usii gudagalo kuwa ogtihiin qur-aanka in meelo badan lagu sheegay yacni number 7 ama number 7 saa u taqaanaba taasoo ka mid tahay dhulku ilaahay markuu sifeynaya wuxuu ku sheegay inuu 7 yahay samadana ay 7 tahay. Marka waxaa kaloo meeshaas kaaga baxaya in dhulku markuu 7 yahay cirkana ay 7 tahay samada. So marka waxaa kaloo meeshan hadda ku socdo qodobkii 3aad dhulka iyo cirka waa number 1 number 2 ay kala yihiin qodobada oo min 7 waxaa kaloo ka mid xajka markii la aado aniga iga cilmi badan tihiin markii dawaaful xajka markaa aadayso waa inaad 7 jeer ayadana aad dawaafta. Sidoo kale safa iyo marwa waa meel 7 jeer orod lagu tagaayo 7 jeer orod lagu tagayaa waa ordaysaa safa iyo marwa. Sidoo kale ramyiga ama dhagax tuurka 7 jeer baa dhagax tuuraysaa. Xajka waxaa weeyaan waxay ku jirtaa waajibaadka la qabanayo ama shaqada la qabanayo xajka markii la aado inkastoo aanay xaaji ahayn laakiin dadka xajka taga markaa ka wareysato aad arkayso iyo kitaabada markaad ayagana aad akhrinayso aad ku dhex arkayso. Ta kale waxaa ka mid laakiin tan waa naqaanaa waa maqashay tani waa nijaasada eyga nijaasada eyga waa aragtay hadduu weel taabto eygu waa in 6 jeer oo biyo ah iyo 1 mar oo carro ah ama 7 jeer la dhaqaa totally 7daas waa inay mid ka mid ah ahaataa carro ma garatay. So marka taasna waa meeshaas waana wada taqaanaan hadda haddii loo dhaho weelkan eya taabtee daahiri qaabka u dhaqayso muu baahnid inaan kuu sheego. waxaa kaloo ka mid 7 halaagta uu nabi sallallahu alayhi wasallam noo sheegay oo dhahay ijtanibu 7 mubiqaatun ma garatay 7 halaago ka fogaada taasoo yacni waa 7 shay uu nabiga noo sheegay inay wax halaagaan ama 7 wax halaagta oo ay ka mid tahay ashirku billaah ay ka mid tahay. talabaad oo 7 mubiqaadka ka mid waxaa ka mid as-sixir يعني sixirka inaad saaxir noqoto ayadana waa second option waaye. saddexaad waxaa waaye uu nabi sallallahu alayhi wasallam noo sheegay wa qatlu nafs allati harama Allah naf muslim inaad disho taasoon lagu baneenin dilkeeda. naftu bini'aadamka way jirtaa mar lagu baneeyay inaad disho laakiin mar walba ma ahan
makarad mar laba ma banaano. marka waxaa la dhahay wa qatlu nafsi allatii xarama allaahu ilaa bilxaqi lahay. marka tan afraad oo waxaa ahayd sabca muubiqaadka ka mid ah waxaa waaye wa aklu riba, ribada inaa cunto, iyo wa aklu riba iyo ribada inaa cunto. tan shanaad oo ah wa aklu maalu yatiim, agoonta maalkooda in la cuno. hadda umaleyn maayo wax agoon daryeele marka xoolo ma yahay haa igu qabale makarad xoolo ma yahay haa ku qabsi ku qaadi maysa socdade. tan lixaad oo ah yacni watawallaa yowmu saxfi, watawallaa yowmu saxfi waxaa laga wadaa yacni markii gaaladii muslimka isdagaalayaan maalintaas inaad jeesato, halkii lagaa rabo inaad dagaalanto haddaad jeesato adna waxaa tahay waxaa ku dhex jirtaa ama aan maxay ahayd soo hosgalayo tawalla musax baa jeesatay, waxaa qeyb ka mid ah jirkaada ku jirto todobadaba halaago. marka inaad maantas jeesta lama rabo, waxaa la rabaa maantaasi shahaadada aa qaadato oo maxay ahayd masterka aa qaadato makarata. xitaa not being maxay dibloma lama rabo ama bachelor lama rabo, inaa masterka iyo PhD qaado shahaadada maantaas. ta u dambeysa oo sabca muubiqaadka ka mid ah todobadaba halaagta wa qadhafu lmuxsanaati lmu'minaati lghaafilaat. tanna ayadana waxaa waye macnaheeda inaa qadafto. qadaf waxaa laga wadaa inaa xumaan ku sheegto waxaysan ahayn inaa ka sheegto dadka muslimaanta ah, dadka muslimiinta ah oo hadana waxaa laga wadaa weliba gaar ahaan muuminaat lghaafilaat, weliba dumarka inaad dhahdo heblo waa zani, heblo kan waaye, heblo kii kale waaye aad dhahdo. marka taas waa todoba sabca muubiqaatiin. haddaa ku socdo qodobkii lambar 7 waxyaabaha cajiibkii aan ku arko waxaa weeye maalmuhu waa 7 ma garanayno sida 7 ku noqdeen, ma garanayno sida 7 ku noqdeen, ma garanayno aniga xitaa ma garanayno sida 7 ku noqdeen, aqoonteeda ma lihi. 7 tirnaa sabti ilaa jimca tirnaa, sabti ilaa jimco, sabti xasina 3 4 5 jimco waa 7 meesha ka yimaadeen ma garanayo cidii u dhanta way ii sheegi kartaa. sidoo kale waxaa ka mid ah qur-aanka wuxuu ka kooban yahay 7 subac, 7 jalaad saa u taqaano. subaca u aqaanaa, jalaadna u garanaya aniga labada u aqaanaa. sidoo kale waxaa ka mid ah naarta ayadana waxaa weeyaan 7 inkastoo magacyadu aan haynin. magacyadu waxaa ka mid ahaa haawiya ka mid ah, saciira ka mid waxaa kaloo ka mid ah jaxiima ka mid ah, xudaba ka mid ah. marka waa fara badan tahay nahayo. marka intaan baa lambar 7 markaan qiimeeyey aan kusoo koobay. wuu fara badan yahay lambar 7 cajaa'ibkiisa iyo qisooyinkiisa inaa idinku dheeray ma doonayo. fiidiyowga halkana ku ekeenaya. asxaabta aan kala maqnayna kala baadiyownay waxaan idin leeyahay intay habeen u tahay habeen wanaagsan, intay maalin u tahay maalin wanaagsan. anigoo kolba habeen bay ii tahay. salaama min kulli afa. salute.